noloshu alxayaa kullahaana waa challenges nolosha gebigeedu waa caqabaad nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay noloshu waa dadaal iyo caqabad la raba in laga tallaabo ee keebaa diyaar u tahay ma inaad kan ka tallawdo caqabadiisa waa waxaagana inaad haysato waxna ku darsatid bise waxaad diyaar u tahay waralkan waxba ku hayn kari maysida inaad xaggaaga iska qabato dee taa lafteedu ma fududee challenges baa yaallay wax la cunaa la raadinaya dhaqaala la raadinaya nabad baa la challenge kale xaggaana yaalla inaad kaa waajahdo labada challenge ama labada caqabadood keebaad diyaar u tahay inaad waajahdo weeyaan qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa tajaaribtii ummadii hore iyo wixii ku dhacay iyo siday qaar diintooda u haysteen iyo qaar siday u milmeen waxaa kaloo qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamayaa qurbadii koowaad ee muslimiintu siday uga baxeen marka tajribo ka horreysay islaamkan aynu hadda haysanno oo taariikhiya qur-aanka way ku taallaa waxaa kaloo qur-aanka ku yaalla tajribadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo dee iyaba dhul muslim may joogin yani nebigu markuu soo baxay maka dee gaalaa deganayd madiinana gaalaa deganayd carabina gaalay ahayd midhmidh baa dadka uu islaamay dhowrkaa qof oo uu islaamiya isagu waxay ahaayeen mujtamac yaroo koobanoo ku dhex nool mujtamac ka gadisan oo diin ka gadisan haysta afka way wadaagayeen laakiin dhaqan iyo diin ka gadisan oo jaahiliya ah haysta marka lababa waxaynu u baahanay inaynu wax ka baranno taariikhdu qur-aanku ka waramayee ku saabsan dadkii mashaakilkaasi qabsadee ka soo baxay ama ku dhacay inaynu si fiican u daraasayno saxaabadii nebiga iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gurbat alislaami aluulaa siday uga baxeen waayo altamasuku biddiini waalictizaazu bih fii waqti alqurba arrin fudud maaha walidalik ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa saxiix aljaamici saqiir can anas ibni malik xadiid ka soo arooray ya'ti cala annaasi zamaanun alsaabiru fiihi calaa diinihi kalqaabidi cala aljamr meeshuu inuu challenge buu nebigu tilmaamaya dadka waqti baa ku iman doona qofku diintiisa inuu haysto oo ku dheganaado ay la mid tahay nin dhuxul haysta yani dhuxul daba inaad qabataa waa challenge adag waqti ay sidaa diintu ku noqon doontaa iman doontaa ama xadiidka ibnu mascuud warinaya ina min waraa'ikum zamaanu sabri litamasuku fiihi ajru 50 shuhadaa minkum maalmaha dambeeya qofku diintiisa inuu ku dheganaado uu la mid yahay konton idinka ka mid ah nabigu tilmaamayay sida awgeed qur-aanka ilaahay wuxuu ka warramay niman reer banu israa'iil la yidhaahdo yahuud reer banu israa'iil waa mujtamacyada ugu badan ee ilaahay kitaabkiisa uu taariikhdooda ka warramay taariikhda reer banu israa'iil xumo iyo samaba way leedahay reer banu israa'iil nebiyaa ka dhashay nebiyo badanoo qur-aanku ka tilmaamayo dee israa'iil waa nebi yacquub inankiisiiyo maxay ah nebi yuusuf walaaladii oo iyana culammadu badhleeyeen nebiye markii dambe noqdeen ambiyo badan nebi sulaymaan nebi huud maaha sulaymaan aabihii daawuud nebiyullaahi muusa ambiyo badan oo reer banu israa'iil oo dad saalixiina qur-aanka ka warramaya bale ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inay ka mid wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun reer banu israa'iil waxaa ka mid ah a'imma dad lagu daydo oo diinta ilaahay ku dhegay markii ay ku sabreen inay waxooda xejistaan yaqiintooduna ay rasmi ahayd yani laba midnama gelin waxaan ay diinta haysteenna way rumaysanaayeen way yaqiinsanaayeen second to that obstacleski ka hor yimid dhibaatadii ka hortimina umay dabcin labadaas shay markay isla heleen baa ilaahay leeyahy ayay waxay u noqdeen bini aadamka tusaale kuwaasi reer banu israa'iil bay ka mid ahay waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inooga warramaya gruub kalena inuu reer banu israa'iil ka mid yahay bal gruubka kale aan eegna waxa ilaahay ku sifeeyey marka hore ilaahay wuxuu yidhi waqatacnaahum fi lardi umama reer banu israa'iil waa googoynay baa ilaahay yidhi oo dhulkaa lagu faafiyey minhum asaalixuuna wa minhum duuna dalik kuwa suuban iyo kuwa xunba way lahaayeen baa ilaahay leeyahy wabalownaahum bilxasanaati wasayi'aati lacallahum yarjicuun dhibaatooyin iyo wanaagba waa ku itixaamnay bal inay soo noqdaan ilaahay wuxuu sheegay markaa kuwii kaga dambeeyey waa kuwii lumay
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إلهي وحده كوا قداشود وحمري qoladan maxaa u calaamada marka hore kitaabka way dhaxleen dadkii challengeska soo maray adkaa maaha waa dad dhaxlay waa sideenoo kale inagu islaamnimana umaynan dhiman cidna meel kamaynan xoraysan inagoo dhul muslim degan oo dad muslimiina la nool baynu islaamnimada dhaxalay waliba abiyo hooyadii buu ka dhaxlay bulshadii uu la joogay buu ka dhaxlay way dhaxleen kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin warithu hada alkitaab asalkana waxa la yaqaan qofka bini aadamka wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo uu uga lex jecel badan yahay waxa si fudud soo gala hatta dhaqaalaha caadiga waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan laakiin xoolaha aabaha ka dhaxashay inta badan sayidska dhalinyarada wixii ay aabahood ka dhaxleen inta badan waa lagu tuntaa waa la baabi'iyaa laakiin waxaad adigu dhididkaaga ku keentay waxaa laga yaabaa inaad yamxeeriso ilaaliso oo ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin ilaahay kuwan wuxuu yidhi warithuu hada alkitaab way dhaxleen baa la yidhi dhaxal bay kitaabka ku heleen maxaa caada waa markaa ya'khuduuna carada hada aladnaa wayaquuluuna sayugfaru lana wain yaatihim caradun mithlu ya'khuduu waa iska dambaabayaan waxay doonaan bay samaynayaan marka la dhawr wasideen waxay odhan insha allah ilaahay baa noo dambi dhaafi طبعا ilaahay dambiga ugu dhaafaa laakiin haddana hadday mashkiladu timaadaba ilaahay leeyahay mar kale waa iska qaadanayaan marka amalka war ilaahay baa ghafuurur rahiim ilaahay baa inoo dhaafiyo iska walaaqda ayay ku wadaan waa maxay ka soo horbaxay islaamnimada waa khilaafayaan waxaanay nafta ugu sheekeynayaan ilaahay waa ghafuurur rahiim ilaahay baa inoo dhaafi laakiin ma ha ghafuurur rahiim nima intuu rumeeyay wixii ka joogsaday oo leeyay ilaahay wixii hore hayga dhaafay markaan wadada saxaya wa yaatihim aradun mithlu ya'khuduhu ba ilaahay yiri tii ku labaad oo lamid ah haday soo martana halkii bay ka wadayaan waa qaadanayaan ba ilaahay yiri ilaahay markaa wuxuu war kuwan miyaan ballan ilaahay ka qaadin inay day xaq ku sugnaadaan oo diintan ku sugmaan oo aakhira inay dambayso ogaadaan qola waa nooca qola kalena ilaahay wuxuu yiri walladina yumassikuuna bilkitaabi wa aqaamu as-salaata inna la nudiicu ajra al-muslihiin walladina yumassikuun kuwa kitaabka qabqabsanaya baa ilaahay yiri masaka oo bitadciifa luqa al-arabiya yani waxa weeyaan marka qabqabato waa qof aan rabin waxaan inuu ka baxsado hal yaaba dumar quran qabto ay ka siibato qofka caadiga inuu iska laakiin kan waa qof raba maxay inuu xajisto kuwa xajisanaya baa ilaahay yiri kitaabkan ee salaada oogaya kuwana ajirkooda dayici maaya ilaahay yiri idan waa laba midun inay dhahno insha Allah sayghfaru lana وعرفت واسكها doontaa diinku waa arrimaha diinta oo dhamay noqdaan insha Allah inaynu sayghfaru lana ku dhisno ku binayno على هذا المذهب قادنه يينو قادنا مذهب التمسك بالكتاب inaynu xijisano jiilkii hore saxaabadu siday uga baxeen sawir yar kooban baa waxay ka siinaya afartii suuradood ee quraanka ugu horeeyay soo daga culimadu waxay isku waafaqsan yihiin afar suuradood qaybaha ugu horeeya inay quraanka u soo hordageen waa laga yaabaa riwaayaadka oo isdhaafinaya afartan isay u kala horeeyeen inaad aragto laakiin afartaasi inay yihiin afartii ugu horeeyay ayaa badiba culimadu tilmaamaan waa suuratul alaq inta ugu horeysa اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آيات كوجه الرية وسورة المدثر آيات كوجه الرية يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وسورة المزمل آيات كوجه الرية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا آيات كوجه هي سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون حول ما ذو يدهدان وحيجي كواد النبي محمد كوب بالعظم وحوها وحي أنسي فدود لوجو شيء نسي حوجا لوجو شيء يعني
dhowr jeer buu jibriil halkan qabto intuu nafta isugu keenay nabiga uu yidhi iqra uu nabigu lahaa ma ana biqaari xataa markay neefta ku dhigaadho uu sii daayo uu leeyahay iqra waxay culamaadu yidhaahdaan الأصل في التعليم وإن سفد ضل يسوق شيءه لكن هذه المسألة وحل الربيبي لي في قمة الانتباه والصحوة إن أرنك صوص عضا وحفظوا دينان وهينين لسوت شيء ديو أفرت الشيء محي شيء يعني وجوه الرأي آيات كان يكور رميان لبس صورة ضد مسألة العلم بيكور رميان اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم النون والقلم وما يسطرون هاي علماء يدهدان وحي مسألة تلمامسة بالجهل إن الدين لغو حجين كرين يدو جاهل ليي إن وحبل حجين كرين أصل كدين تونا إن كوسا ليسان تاي عرب أختي جدي وحل غيابا أقون دتك وقدام بيين هي baahiyaha qabtay kale waxa laga yaabaa hadii adiga lagu oran lahaa maxaa lagu islaaxin lahaa cadaalada hal raadiye kana raadiye wax badan oo kale inay tilmaami lahayd laakiin mas'alatu tawxiid wal ilmi bay dhaadeen waa wada socotay asalku wuxuu yahay markaa aqoon ilaahay la barto rusushiisa la barto aakhira la ogaado ilmi baa lagu xijin karaa waa shayga koowaad ee laga fahmayo bay dhaadaan shayga labaad ee laga fahmayo aayaadkani waxa weeyaan bay leeyihiin qofka bini aadamkii ama isaga dacwo wada ama isaga dacwo loo wada ama adaa lagu raadaynaya adaa sii milmayo sii socda maalinba in muquuranaya ama adaa wax raadaynayo groupkaaga isku dayay inaad biiriso halkaaga inaad ka dhaqaaqina inaad cid soo biirsato adaa isku dayaya sawgeed baa ilaahay wuxuu ku bilaabay yaa ayuhal muddathiru qum fa andir wa rabbaka فكبر كان استودوبا يوبا ليلي كعودين شيك ربي كان وينيه وثيابك فطهر نفط يا قلبي يا مرض يا وحا غردن طاهر يال والرجس فهجر حمهنا كهجروت ولا تمنن تستكثر وحاد ودنا الهي درتي قوت حلا كل رادين ادو كبط صريها صبيني ولربك فاصبر جدك هداد قادنا مشاكل بعد لكل ميسايه صبر وقت كيسال لي يعني وحلقوا بلابه نبي محمد هدينو دانا عليه الصلاه والسلام وابا ايات كلا بعد كسو دغاي سدا علماء بدن قبطو علمي ugu horeeyay intuu leeka waa iqra iyo waxoga riyooyina cilmiinta soo hay hadana iyadoo cilmigu inta ku kooban yahay waxa la yiri maxay mabda afaafi mabda bilow idan waxay dhahdaan خير الدفاع سليس الدفاع وحوق في عم بين هذا أدقو ويرر قشة إن هذا كمرك الوارك الله يدور وكي وذا كيم بدي شيء حقين وقدو أدقو هنا تهاي قفك وحرادين إياه اسكت ده يدك كينو الراديو لكن إنسانكو ربط الترادة بدن لا وما أتكيسته إلا إيانو إلهي حديد دبأ لليمو يعني سوغيت با وحل يري يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا واذكر اسم ربك بكرة أوكي إلهي وحلي كان استوضوبا يو كع كيسدد يو بالليل كعو إلهي ستاك markaad dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa sida normalka bini aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakaro asxaabtiisii ciddii xidhiidh kala lahaa war maanta yaad mushkiladan yaa ku caawin kara maalan problem dhaqaalaha kugu dhacay marka koowaad aad mushkiladda xalili karay waxa sooraysa bartalo yaad wax ka soo amaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxa ku soo degdegaya midhadhkii xidhiidhkii nuu fiicnay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkan aad tiraahdo war bal waxa ama hema inaad wax ka weydiiyo inaad wax ka heshaba waa suurtagal qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado xalka koowaad ee uu raadiyaa waxa weeyaan rabbu samaawaati wal ardi inuu xidhiidh la sameeyo man biyadihi malakuutu kulli shay
ilaaha gacantiisa wax waliba ku jiraan albaabkiisa inuu garaaco sawgeed baa nabi maxamed markay dhibtu ka hortibay ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila kanis dadayow kanis duuduubayow kac habeenkii intiisa badan in yar mooyaane nuskii ama wax yar ka yaree baa layidhi maxaa lagu cileeyey innaa sanulqi calayka qawlan thaqiila baa ilaa yidhi war culus baa lagu dhiibayaa dacwadan iyo diinkan iyo qur-aankan iyo systemkan inaad qaaddaa arrin fudud maaha baa ilaahay leeyahy war culus baa lagu siinayaa laakiin warkan culus waxaa kuu fuduudinaya waa maxay xidhiidhkaad ilaahay la leedahay kullamaa xidhiidhkaynu rabbi la leenay uu daciifo isbeddelka nolosheenna xagga xumi wuu degdegayaa mar kasta uu xoogaysto xidhiidhkaad ilaahay la leedahayna xejisadaad xejisanaysa diinkaaga iyo waxaagu wuu xoogoobayaa idan aayaadkan markaan isku soo daro anigoo raba inaan ra'yi guudun ka tilmaamo koobo waxa weeyaan in wax la barto oo diintaada can cilmin aad ku sugnaato waayo shubahaadka kama jawaabi kartid ama ma ka noolaan kartid cilmi mooyaane shubhada daliil baa kaa riixi kara haddaanad daliil haysanin waad jabaysaa idan cilmi inuu yahay laabud shahawaadkana xidhiidhkaad ilaahay la leeday badnidiisaa riixa inaad ilaahay xidhiidh badan la yeelato faafinta diintuna environment bay kuu abuuraysaa aad ku dhex noolaan kartid inaad diinta faafisid oo markaasi aada faafisid saxaabadii iyo nebigii markay masaa'ilkaa ku adkaysteen noloshu umay fududayn nolol adag bay la kulmeen qaar la toorjar gareeyo qaar la dilo qaar toorjarka ku dhinta isagoo nebi maxamed arkaya calayhi salaatu wasalaam qaar toorjar lagu dilo saxaabadiisi ka mid a qaar sidii loo toorjar garaynaya iyagoo tii u dambaysay ee laga sii daayo nooc walba way yeesheen haddana ilaahay wuxuu leeyay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila baa ilaah yidhi mu'miniinta waxaa ka mid a rag ka run sheegay waxay ilaahay u ballan qaadeen soo sheego qadiyatu sidqi idan kalama hadlayna ka run sheegay wixii maxay ballana ay ilaahay la galeen fa minhum man qadaa naxba wa minhum man yantadir baa layidhi waxaa ka mid ah qaar sidaa ku dhintay iyagoo jidkii ku taagan iyo qaar sugaya waddadaas inay hayaan ilaahay markuu saxaabadaa tilmaamaya waxaa lagu tilmaamay rijaalun laa tulhiihim تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والركبة إلهي إليه كواسي أنا مشغولين تجارة يا بيع يا وحقدست يا بعمشة لعق حوكسيو أما الدنيا حوكسيو أنا كم مشغولين عن ذكر الله إلهي حسكيس وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صلاة دوغستيدا marar badan waxaa idhahdaa su-aalaha soo noqnoqda had iyo goor waxaa ka mid ah salaada iyo shaqada sheekh dee shaqadii maxaan sameeyaa salaadiiba caynkan salaadiiba cayn waayo shaqada xaggeena muhima laakiin tan kala agteenna ah taqiilka loo raaday shaqada qiil u raadin maysid iyada shaqada waa shaqo waxaa u baahan in qiil loo raadiyaa waa maxay waa salaada iyo saa loo tukanayay إلهينا وحطوا الماما قولة تموح لقصفين يهين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وايو يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ما لم بيكعب سنة يعني دات شقدين لغير يرقى على الدرات كير عب سنة لكن قولة أنا وحي كعب سنة يعني ما لن قلبي يدا إيو قرات كي يندو يوحبق القلمان cabsida maalinta ka haysa daraaddeed mar kasta iyaga waxa priority-ga u leh number 1 ah cibaadadooda iyo kooga kan waxaan leenahay koow ahlu kitaabkii hore hadday gurbada waxay kaga baxeen baynu kaga bixi karnaa lama sabaru wa kaanuu biaayatina yuqinuun waladiina yumasikuuna bilkitaab kitaabka kuwii qabsanayay waxaynu kaga bixi karnaa baynu leenahay wixii saxaabadii nebi maxamed kaga baxday calayhi salaatu wasalaam iyo rasuulullaahi muxamed iyo qur-aankii koowaadee nebiga ku soo degay siduu u tawjiihiyey xaguu u diray waxaan kaga bixi karnaa baynu leenahay marka aynu garanno waxaynu haysanaa
waxa inaga maqan inuu ka qiimo badan yahay الاعتزاز بالدين يعني ما waxaan raadinayaa qiimo badan mise waxaan haystaa qiimo bini aadamku markuu xiibsanaya ama wax gadanayo waxaad wax ku raadisaa maxay de waxa qiimo badan leenu xagaaga soo maro shay taafiha ma iibsatid waxaan qiimo ku joogeen ama waxa kan ma rabtid nolosha madiinka qiimo badan oo aynu ilaalinaa mise waxyaabaha kale ilaahay waxayna barayeen inaynu diinteena muctasiin kuwa ku faano oo xejista maaha kuwa xejiyo qura xejinta waxa laga yaabaa inaad tiraahdo ilaali laakiin haddaynu salaadii qabanno waa salaada iska tuko laakiin dee bal meelaha aan lagu arkayn iyo su-aalu waa musqusha ma lagu tukan karaa iyo meelaha ma lagu tukan karaa iyo gaadhiga adigoo wada kursiga iskaga tukan kartaa iyo meelahaasay su-aaluhu badan yihiin laakiin al-ictizaazu bidiin uu ka gedisan yahay diinta hadda inaad muctas ku tahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun war cize iyo sharaf waxa le baa ilaahay leeyahy alla iyo rasuulkiisa iyo inta raacday munaafiqu se ma fahamsana taasi maxay keensanaysaa saxaabadii diinta haysay bidhbidhka noloshu ma niyad jabinin maalan dagaaladii ugu waaweynaaye saxaabadu gashay waxaa ka mid ah xarbi alqaadisiya ciraaq meeshan la yidhahday ku taallaa ciraaq waxaa inteeda badan haystay persia dowladdii iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa baqdaad dhinaceedaba kama fogaa maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka qaadisiya dhowr boqoloo kun oo gaala iyo soddoneeyo kun oo saxaaba baa is hortaagan iyo intii la socotaya saxaabada waxaa hogaaminaya casharatu lmubashiriin nin ka mid ah sacd ibn abi waqaas baa ciidanka wata qolada kalena waxaa hogaaminaya nin rustam la yidhahdo oo jananadoodii waaweynaa ee laga dambeeyey ka mid ah markaa rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentally siday u fakerayaan inuu ogaado wuxuu sacad weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal uu dhex maro nin baa loo diray uu soo celiyay mid kale bal ii soo diray waa loo diray saddex nin baa kolba mid u tegay saddex saxaabi ayaa kolba mid u tegay maalan mid ka midun haddaynu soo qaadno ribciy ibni caamir baa ka mid ah ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaalo doon hadday tahay inaan dhaqaalo bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carbetiska ayaa la waday dhulaad u ballaadhan ninkan muslimiinta ka socda faras yaroo gaaban buu wataa waa nin intaasoo bilood dagaal ku soo jiray dee ninay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha rabiy ibnu caamir oo faras yaroo gaaban wataa soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyey faraskiisii kama degine waxay culamada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka miduu faraska ku xidha dabeetana uu ka soo dhaadhaco uu xagga usoo dhaca waxay yidhahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adigoo hubsita looma tago wuxuu ku yidhi boqorku isagaa ii yeedhay anigu umaan rabine haddaad rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxaa la yidhi rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinkaa ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waan iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi maca hubkiisa soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su-aala baa la weydiiyey markaa maa jaa bikum war maxaa idin keenay abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya kasoo maxaa idin keenay saxaari uga timaadeen wuxuu ugu jawaabay الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوابحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضوما هيس الضون سنة يانو إلهي الضوما ورقنه وحنوسع عن أبو لين البنادم كحرينه مخلوق خلينا والضون سن إلهي يقول إن يدتك الضوما ونقضان ودتك حرية هلان فحنوسع عن أبو لين cibaadadu ay ilaahay gaar ku noqoto waxaanu kaloo u soconnaa buu yidhi inaanu dadka dunida cidhiidhigeeda ka saaro ballaceeda u saaro haddaba ninkan kaarbatyada cascas dhigtay ee carshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay cidhiidhigaa kaa saaraya cidhiidhigu waa qalbiga kan adduunku qiimo ulama fadhiyo weyn kaarbatyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiyaa wax weyn oo qiima uma samaynayso
waxaa kala fiican cadaaladda iyo maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxaa istaa kala fiican marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye cidhiidhigan adduun baan kaa bixinayaa waxaan kuu saarayaa maxay ballaca adduunkan ku geynayaa buu leeyahay waxaan kaloo u socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno islaamka cadaaladiisa kuu saaro yacni mowqifkani wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan nin ka xoolo badan oo ka بدبدك الدنيا كفي عن وتاجن إنه معتز بالدين دين تيسوى حولك عن تاينا وتشيرين إنه الروميسية تسوى كان سنة نقف كان الدين تيسوى لا شده إلهي وحنا وحين لا حتى هدي سيدا كلنا الله يدينكم حقبته ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ورها اللي دنينا بقى ليلوها مروانينا إذنك كوريا هدي إيمان وتشيروه داد ربيسان تاي ربي جاي كحولان تاي هذا كوريا صلى الله عليه وسلم والصحابة دان غير مكاها يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ربي يسوي مغدينا ان مركي بيت المقدس مسلمين تاي فرتين بيت المقدس نيكا فرنا عيدا كاسنا نيكا 10 المبشرين هو قامني عبيدة بن الجراح يا عيد مدوتي دبتنا قولدي مسيحيين تمشي جوجتي waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baan galeynaa saasaan u kula heshiinayna laakiin furaha wuxun baan u dhiibaynaa amirul mu'miniin kiinu hayimaado isagaan fura ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay abu ubayda umar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yiraahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaalay umar wuu soo baxay wuxuu rabaa furihii bayt almaqdes inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho uu soo socday markuu meesha in yar u soo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidh iyo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanaynta cumar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisiina soo hogaamiyey dhoobadiina iska soo dhex socday أبا عبيدة يا عيد مدي مسلمين ترقي سود ويني يا كهر يمو أبا عبيدة وحولي عمرو ما تشعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم وريني إن مقالة دتك دي مدح دينا يكو أركان سيدنا أدقو نكن فايدني عقار دوبا كلها إن لغو أركو ما نشعلي بولي عمر أريجي ودي بصدق أديك عيدنا أوه لو يقول هذا غيرك بيري أبا عبيدة وحن شعلان الله ميدان أديك هينون يراد أبا عبيدة أديك وكاحشوني أقول لي لكن وان عقابي لها أنك لو أنا أديك هيني إنه ياي مركا وكحم يقول لي لو غيرك قالها ميدان أديك هين موركا سكا صوبح أقول لي دبتنا عمر روح ودي بقول نقضي التاريخ دودي أبا عبيدة بوأوجي لكن وحو يرربون isagoo amirul mu'minin ku muuqda amirul mu'minin xagga dharka iyo haybada inuu meesha yimaado laakiin umar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inna kunna dhalla qawmin dad aad u dulaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciiseeyo dad naga dhigay buu leeyahay markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dulaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciiseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meel aan diintayada ahayn ilaahay waa naduleynaya ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa duloobayna waxaynu uga dan leenahay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam ومن ورائه صحابة الله هذا يا وحليلي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحولي حجسو فاستمسك بالذي أوحي إليك وحي لغوسو وحي يدي حجسو وايو جد صحابات كسوغان تيبا إلهي لي جد قمان بات كتاغانتي وإنه لذكر لك ولقومك قرآن كاسية وحي جاية دين تلقو سودة شينا شرف بوكوية هي أديك يطلق بابا إلهي لي إلهي نويدين ويدين دونا مركا وحي قال السنين ننسي السنين محي وحليته من كان يريد العزة فلله العزة جميعا
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أو حلاني شيء كوات حويان إنه غربة كجبحنه وحي أهل كتاب كهري إلهي كتل مامين كجبحيين إنه كجبحنه وحي صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كجبحضي إنه معتز كوهانه ضد كفانية وانقرصنين دين تترين إنه نقانه وحين لا كل ما مركه إنه وحن شيء إنه معناه دماها nolosha dhan ba iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha wax maya system dhan oo dhisan oo waxaan ka soo horjeeday inuu nimi laabud min tadxiya waa laabud in culays ka hor imanayo challenges ay jiraan oo dhib ay jirto laakiin waa maxay taxadiyaadka in geesinimo iyo sabir lagala hortago geesinimadu goob dagaal oo qura maahe geesinimada adabiga aba ka roon kalimatul xaq inaad markasta ku dhawaaqi karto waxaaga inaad muujisan karto inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xajisan karto ولذلك با إلهي غير بنو إسرائيل كي هاقاقي وحولي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وركوا إيمانك لقاها ليوبا إلهي صبرا والله الصبر لك تبال ليه مشاكل كوكو بدن دونايو وبني آدم وحن كالو إذن كهر إيمانا ياي يأيدن كصبر بدن نبا إلهي ليه ورابطوا في ثغوركم قوابها أدكو جرتان إنه فيسيدين نحي جسته إلهينا كعب صدا وقوليسان دون تنبا إلهي ليه سبحانه وتعالى انت كدب حينو باهرنا هاي نوع من الحكمة نوع من الحنكة نوع من اللباقة نوع من الرفق يدوم مبادئ كو حكي سنينو هدنا انت اينو si fudud wax u wadi karna inaynu wadno marka qofka la yiraahdo diintaada xijisa dadka barba u fahmaan cunfi iyo dagaal iyo qalafsani iyo insida maqiiq meel kasta kala hortag sidaasna ma sax maaha waxaga hayso xijiso laakiin de martaatay usulubna u noolow yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Aisha ayaa waxay sheegaysaa xadiiska sheekhaynku warinayaan walaa nabiga u timi iyagoo de ku jeesteesayo caayaya markaas waxay ku yiraahdeen assalaamu calaykum assalaamu laamka laga boodaya laakiin waxa la iska dhigayaa in iyadii la yiri assalaamu calaykum waa geeriyo korkaaga haato waa habaar assalaamu calaykumna waa rabbi ha ku xifdiyo nabadgeliyo wana korkaaga haado assalaamu calaykumna waa mawd iyo geeriyo balaayo korkaaga haato dabeetana Aisha inta carootay markiiba waxay tiri bal wa calaykum assalaam wal la'ma idinka arada alle iyo geeridiisa nacdashiga korkiina idinka ha haato bay tiri nabigu calayhi salaatu wassalaam isagoo kuwana maqlaya wixii ay yiraahdeen Aishana maqlaya waxay tiri أيوة عائشة هدنا تلصينا يا وحلا يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله عاشاي إلى هو الرفيق وكسيد بعسن تتكون مرية يحب الرفق في وحول بنين سيد مرسل الله سمايه أي قال عليه سبحانه وتعالى عائشة وحي مود نبغينا أنو مغلين ملا دمرتني يعني وركيبان مغلينه أو لم تسمع ما قال وحي كهد لين مياد مغل إلهي رسول كيسيو قد قلت وعليكم بنقول ومقلي يعني وعليكم من بان دوسو قابي وحنا قدنا لنا هي حديث الرواية إمام مسلم حيث الإمام إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواية كلا إمام مسلم ورينا الرجيني يدنا وحي شيء عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وحنا قدنا لنا يوم عقيدتنا يا مبادئنا يا أخلاقنا يا دقنكنا دمانتودا أن حجسنو تا معناهedana lagama fahmayo cunfi iyo المشاكل كلام أبور lagama fahmayo ee waxa laga fahmayaa inaynu aqeedada islaamiga iyo dhaqanka islaamiga inaga dul muuqdaan qadiyada kale aan tilmaamayo waxa weeyaan
وإننا كلا قرنا محان قادنا محان كتجينا وإننا كلا قرنا مينو ميد مينا وينو بابا إنا ذوبان مسي اندماج halkan markaad joogtaan erayaal la idin sharxa la yiraahdo maxay assimilation iyo integration dadka baadbay yiraahdaan geetobay galaan qaarna way assimilate gareeyaan qaarna way u dhaxeeyaan oo waxay galaan maxay integration geetog waa intaad meel isku qafulso xira yareeda wax walba may tiraahdo taade adigu bay ka suurtagal tahay yararkaaga iyo islaamaaga waxa kan kama suurtagalaha in dad meel isku qafili kareysana kaagi baa ku roonaa inaad isku qafisho وارد حقنا صباحي كدر سمكونا دوا هذا أردن تاي وسكملنكو وحصوا هراي وحيجونا ينقوا عديان إننا نبغى هنين الفهم نلا إذا ده integration مال والبوح على لي integration politicians يعني ما كسياسيين تي بلشة كستو homogeneous ويكفوا ضد البلشة ده كله جديسن ان تعدد كويو نوعيات كله جديسن وحيابا قاركود ويكفي عين بينه لكن سياسي قوم فينا سياسي وحو جعلي ضد السوء أركتيو اسكو دانو تشيدو دان قرا ودا كحيو لكن دد جيسله وكو يرد بدن تاي marka iyagu integration ka ay sheegaan inta badan siyaas u badan yihiin laakiin adigu inaad integrateto waa sax laakiin laba weerood waa inaan kala garanaa mal farq بين التبعية والاستفادة بين التقليد والعلم حاول حياة إنه دميردان راعي نقولنا كضيا نو أو حول بكا قاضنا يعني وحكا فائدنا أقولنا ككرسنا وحوين بقول حياة وحي وحنفعية يعني دين هذا كهري ما نين إنه كقاضنا ويا لكن مسائل كعقائد يا دين يا أخلاقيات كني عبادات كني وحين إنه كتنازل معها إنه كتنازل معها بركوا إنه كلا جرنا نبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية إنه يدعي دونته لا تتبعون سننا أو سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحراعي دونته أبو نبي يقولي ودوين كده كيدين كهرية تاكا يدودودون صحابة دي دمنتت كهيدا وحسك صور عيسى دولك حريصة يا عين كان أبو وركا كلي مركز النبي وحولي ولبا حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه أو لدخلتموه حتى هدي قد مسلوا علي قد مسع علي هدي قلان وكذا بقى لي يسمون النبي مركز واحد يا رسول الله اليهود والنصارى ما يهود يا نصارى قال فمن يا كلام النبي يا كلا مالك قالوا هدنا النبي وحو يري حديث كان وكلا سورنا من قبلكم بالراعي دونتان مركز واحد الروم والفرس ما رومانس يو بيرشيان كا يا كلام النبي وحو ابن حجر رحمة الله عليه مركو لبدا حديث بفسيره وحو ليه وحي سياسة دولية يباب كاكو صاب سنة وضد الرومانس يو بيرشيان كا أيا راعي دونتان هذا نقطة بدعة يدين أبورك هي وحنك هلنا وحراعي سان محي اليهود والنصارى إذن أصلكم حديث كان ينوت المامية وحنوت المامية قفك مسلم كاي وحو كغسو عيه إنو قرطو يهودية نصارى محو كغسو عيه رومانسي بيرشين محو كغسو عيه مبادئ عقائد الدين بتكغسو عن تاي محاودة ليدين تجارب الإنسانية وحي كترسن بني آدم كوحي اكسبيرينس كو كل حالي aqoontan la sheegayo dhaminteeda badan waa maxay waa tajaaribtii bini aadamku kala dhaxlay idan waxaynu qaadanayno iyo waxaynu ka tagaynaa inaynu garanno ilaahay markuu quraan ka warramayo anbiya ilaahay ka warramay fi suurati maryam baan rajaynaya anbiya ilaahay ka warramay nabi hebel marka anbiyada alla ka warramay ayaa ilaahay isku soo duuduuba wuxuu yiri ulaa'ika alladheena an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin min dhurriyyati aadama wa mimman hamalna ma'a nuh ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا كواسبا إلهي وكوي إلهي النعمي ذرية النبي آدم يكوي النبي نوح نبي إبراهيم يا نبي إسرائيل وحي دلاني أنت أنو هنون نبي إلهي إلهي كيسا كي مقلان وخضوعنا وسجودا لكن جروب كان النبي هذا كبحسن با إلهي طلبا بهذا فخلف من بعدهم خلف
جروبا كوا دبا مريبا إلى هيري ووضدوا دي كواعدين محي سماية أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا صلاة يضيعين شهوات نفسي وحي ربطي يسكر راعين كواس النار تقليا بالوت الماما محان وقدون لنا مركا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وحنو دان لنا لنا حي وين نقرنا وحاينو هايسانينو وين نقرنا تجاربتي هوري إلهي وحي نوت الماما يدول وحي للربي إني كتغان mooye wixii la rabay inay xijistaan ka dhacay oo maxaa kamid ah مثلا ilaahay wuxuu tilmaamay watlu calayhim naba alladii aataynahu aayatina fansalakha minha faatbacahu ash-shaytaanu fakana min al-ghaawin waxaa dadka ku akhridaa baa ilaahay yidhi warkii kii aanu aayaadka siinay mid diin garanayuu ahaa maxaa ku dhacay fansalakh waa ka siibmay baa ilaahay yidhi dabeetana shaydaan iyo gruubkaasuu ku biiray كا إلهي مركو تلمامي وحالي فمثله إلهي وحو مركو صوت المامي هدي إلهي دون يوقف كان يقف سقنب النقل الله وكال صوشيك وحالي فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كاتو ساليسو أي قبول لمدي بالي أي هدي اللي إريانا عربك والله الله ديا هدوسك فرديانا عربك والله الله ديا حولاك لسيدا معها حولاك لمركو كوليل يوحادر يمان بي حراري يوضان marka ay seen nabad qabaan de ma harariyoodan aygu laakiin markastaba isagoo carab laala kan waxa weeyaan haday diin loo sheegay hadaan loo sheegay waa isku mid ilaa marka horeba diin buu hayo uu ka baxay waa kitaab xor de wadaad qori kitaab xor ma hadaynu wadada wada cararo dadku waa wada kitaab xor buu noqonaya ninba intuu hayuun buu xoorayay nin salaad xoora iyo nin in ka durugsan xooraba ninba intuu hayuu xooraya waxa kale ilaahay quraanka inoogu sheegaya shaytaanku qurama hadad mutarabbisiina inay wadada fadhiyaan dad ugaadhsitaga oo jecel inay naga saaraan ilaahay wuxuu leeyahay wadda kathiirun min ahli alkitaabi law yaruddunakum min ba'di iimanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq in badan oo ahlu kitaab kamidi waxay jecel yihiin baa ilaahay inay diintan idin ka bixiyaan iimaanka dabadiina gaalnimo idin celiyaan waliba iyagoo xaq u cad yahay maray wax garteen xaasidnimo daraadeed baa ilaahay yiri de kuwaas inayna waa joogaan marka waxa weeyaan wadcigiyo adag shaydaan oo meesha jooga qolo kale oo ku ugaarsanayso meesha joogta iyo adigoo labaclabacla haday heshaan de arko waa khatar marka weynaynu kala garanaa maxaynu kororsanayna maxaynu aan dib ugu soo noqdo markaas waxaan ka bilaabayaa halkan weynu nimiyo su'aasha ah si fiican qof waliba uga jawaabo ma waxaagii adigoo haysta inaad wax ku kororsataa baad rabtay mise inaad waxaagii wax ku bedelato ninkii rabay wixiisii inuu wax ku kororsadaa waxaad haysata diin baa ugu weyneed diintii waa inaad xajisaa markaasaynu ka wada hadlaynaa adduun iyo wixii aynu kororsanayna taa haddii la waayo waa waxaygii baan wax ku bedelanayaa adna caydhiya shaqaa lagu siin ee diinta iyo carruurtana waa lagaala tegi adna caydhiya shaqaa lagu siin nabadgelyo iyo waxaad ku noolaatay oo kale laakiin nabaddu waa maxay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu inoo tilmaamayay haddii afkaartaad rumaysantay iyo bulshadu waxay rumaysayiin markay iswaafaqaan in nabad helayso wuxuu nabigu yidhi من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نينك وابريسته إساقو نبط قبا في سربه أي في قومه أو في مجتمعه أو في أهله كوريسي ريركيسي ددكيسي كوابريس يعني بلشدي أيسكو waxaa minsanaayeen ninka kuwa bariista isagoo nabad qaba kaasoo ah mucaafan fi jasadi jidhahaana caafimaad qaba cindahu quutu yawm maanta wuxuu afka galiyana haysta ka adduunkuba wuu ku dhan yahay buu nabigu tilmaamaya yani kaasi wuxuu haystaa alamni nafsi walamni alcaqadi walamni alfikri walamni alsixi waxay sheegaan oo dhan ay ka waramaan
ayaa ku soo ururay laakiin ninka waa barista fi ghayri sirbi gruubkiisi cid aan ahayn ku waa barista ee mabaadi iyo afkaar iyo caqaa'id kala gedisan la iskala hor yimaado kaasi meel khatar u jooga marka su-aashu waxay tahay haddaad rabtaan inaad waxaa haysateen wax ku bedelataanna dee waa mas'ala haddaad rabtaan wixii aa haysateen inaad haysataana wax kororsataanna waxaa haysateen sidaa u haysan lahaydeen caqligeeda wayna keentaan